بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته كلنتو وعنو وناكسن داوديال إذا لهانتين بميل والبو الدنيا كجوكتان كنوسو دوادة ورارك فيد وناكسن وقد كداوان إيسان channel كقرر جقود وحوني ستو سايدين كاقي مانا يا استوديو سدح مقالة تن نيروبي وحانا هاي فيسل ليغو قد بدا ورارك فيد وناكسن وقدر كران وحا كمدا قرح كداعي مقالة قالكعيو madaxweynaha dalkani Kenya oo furaya shir caalami ah xildhibaan ka tirsan golaha shacabka oo ku baaqay in wax loo qabto dadka ka barakacay fatahaad wabiga Shabeelle iyo warbaahinta labada Kuuriya oo siyaabo kala duwan uga hadashay kulankii ay yeesheen labada Kuuriya qodobadaasi kula faahfaahsan waxaad ku daawan doontaan wararkeena fiid wanaagsan aynu ku bilawnay faahfaahin ka soo baxaysa qarax ka dhacay magaalada Gaalkacyo ayaa waxa ku dhintay taliyaha ciidamada isku dhafka ee gobolka Mudug Yaasir Cabdullaahi Kaahin ayaa qodobkaasi inoo faahfaahinaya taliyaha ciidanka isku dhafka ee gobolka Mudug oo ku dhintay qarax goordhoweed ka dhacay magaalada Gaalkacyo gaashaanna sare Cabdi Xukun Cabdullaahi Maxamed Xoreey ayaa qaraxay ku dhintay sidoo kale waxa qaraxay ku dhintay saraakiil kale oo ka tirsan ciidanka militariga Soomaaliya oo kamid yahay Cabdiqani Axmed Ganjare inta la xaqiijiyay ilaa 3 askari oo kale ayaa qaraxan lagu dilay sidoo kalena rayda oo ayaa loo maleynaya in qaraxani ku dhinteen sida uu xaqiijiyay wasiirka amniga gudaha maamul goboleedka Soomaaliyeed Axmed Cabdullaahi Yuusuf ayaa waxa uu sheegay in 3 qof oo mid kamid ah ay tahay dumar ay ku dhaawacmeen qaraxani waxa uu ahaa nin xiran waxyaabaha qaraxa waxaanu yimi goob ciidanka ay ka cabiyeen shaah iyagoo ku jira howl maalmeedkooda halkaas ayaa isku qarxiyay waxa dhibkani geystay dadka nabadiidka ah ayaa yiri wasiirka amniga ee maamul goboleedka Puntland wararka ayaa sheegay in qofkan waxyaabaha qarxays ku soo xiray uu ka dambeeyay qaraxani ururka al-shabaab ayaa sheegtay mas'uuliyadda qaraxani ciidanka isku dhafka ah waa askar laga kala keenay maamulada Galmudug iyo Puntland oo si wada jira u suga ammaanka magaalada Gaalkacyo waxaana loo aasaasay xalinta khilaafaadka Gaalkacyo sida uu sheegay wasiirka amniga isagoo hoosta ka xariiqay inay yaraadeen inta ay ciidamada jireen khilaafka iyo isku dhacyada dhexmara maamul goboleedyada Puntland iyo Galmudug madaxweynaha dalkani Kenya Uhuru Kenyatta ayaa maanta furay kulan caalami ah looga hadlayo dhibaatooyinka waxbarashada Afrika miska Maxamed Caate ayaa qodobkaasi inoo eegaysa madaxweynaha dalka Uhuru Kenyatta ayaa jimcihii shalay furay kulan caalami ah oo looga hadlayo dhibaatooyinka waxbarashada ee ka jira dalka madaxweyne Uhuru Kenyatta ayaa hogaamiyaasha iyo aqoon-yahanada ku booriyay inay ka soo qayb galaan shirweynaha UNESCO oo looga hadlayo dhibaatooyinka waxbarashada carruurta ku nool Afrika Uhuru Kenyatta ayaa shirkani ka furay hotelka Safari Park ee magaalada Nairobi shalay ahayd markii uu bangiga adduunka warbixin uu soo saaray ku sheegay in ugu yaraan 30 milyan oo carruur ah oo ku nool qaaradda Afrika aysan wax tacliin ah haysan hase ahaatee waxa warbixinta lagu xusay in 20 sano ee la soo dhaafay wadamada Afrika ay ku tallaabsadeen horumar wax ku ool ah oo la xiriira tirada carruurta ee dugsiyada ku biiray agaasima ku xigeenka tacliinta Afrika oo qaabilsan hay'adda qaramada midoobay iyo waxbarashada sayniska iyo dhaqanka ee UNESCO Mr Edward Matoke ayaa sheegay in qaaradda looga doonayo inay dib u eegis ku sameeyaan barnaamijyadeeda waxbarashada miski Maxamed Caate wararka fiid wanaagsan dawladda federaalka Soomaaliya ayaa ka shiraysa sidii wax looga qaban lahaa dadka ay saameeyeen fatahaaduhu ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya Xasan Cali Kheyre ayaa magaalada Muqdisho ka furay shir ku saabsan fatahaada wabiga Shabeelle iyo barakaca ka socda magaalada Beledweyne shirkan oo ra'iisul wasaaraha ka furay xarunta madaxtooyada dalka ayaa waxa sidoo kale ka soo qayb galay ra'iisul wasaare ku xigeenka Soomaaliya xildhibaano guddiga ka hortagga musiibooyinka qaranka ganacsato iyo hay'adaha aan dawliga ahayn ee ka howlgala gudaha dalka Soomaaliya maanta xafiiska ra'iisul wasaaraha waxa ka dhacay shir ay ka soo qayb galeen xubno kala duwan ee golaha wasiirada xildhibaano iyo culumad diinta Soomaaliyeed haweenka Soomaaliyeed iyo dad kale Soomaaliyeed oo ka kala yimid qaybaha kala duwan ee bulshada shirkaas waxa lagu gorfeenayay xaaladda cusub ee ka taagan dalka gaar ahaan fatahaada wabiyada Jubba iyo Shabeelle iyo dhibaatooyinka ku qabsaday dad badan oo Soomaaliyeed magaalooyin badan oo hadda ay dhibka ugu culus ka muuqato gaar ahaan magaalada Beledweyne madaxda iyo culumaadiinta iyo haweenka isugu yimid shirkaasi waxa aan isku raacnay in aan u gurmano dadka Soomaaliyeed sida ugu dhaqsaha badan dawladda Soomaaliyana awood walba ay hayso inay ku jihayso sidii dadkaas loogu gurmo lahaa sida ugu dhaqsaha badan waxa kale oo isku raacnay in la aasaaso guddi u gurmada dadkaas
ay waxyeeladu gaareen oo ka kooban 22 qofood oo uu madax u yahay ra'iisul wasaare ku-xigeenka xukuumadda federaalka Soomaaliyeed waxaa qayb ka ah wasaarada kala duwan ay ka mid tahay wasaaradda arrimaha gudaha wasaaradda caafimaadka wasaaradda amniga wasaaradda gargaarka masiibooyinka wasaaradda beeraha wasaaradda biyaha waxaa kaloo ka mid ah culimada Soomaaliyeed oo halkan taagan oo aad u jeedaan waxaa kaloo ka mid ah xildhibaano Soomaaliyeed oo qayb ka ah waxaa ka mid ah haweenka Soomaaliyeed oo iyaguna shirkan joogay maanta guddigaasi waxa uu ka shaqeyn doonaa sidii dadkaas loogu gurman lahaa sida ugu dhaqsaha badan shirkaasi markuu dhamaaday kadib xafiiska ra'iisul wasaaraha waxaan haddana isugu yeernay shir kale oo aan ugu yeernay dhammaan safiirada iyo hay-adaha caalamka ee nagala jooga halkan ama ha ahaadaano UN-ka ama ha ahaadaano hay-adaha international iyo local NGOs-ka iyagana waxaan u sheegnay xaaladda dalka uu marayo waxaan ku dhiirigelinay inay sida dhaqsaha badan caawinaad u gaarsiiyaan dadkaas ku dhibaatoobay dhibaatadii aan soo sheegay waxayna ballan qaadeen inay sida ugu dhaqsaha badan ay caawinaad arrimahaas la xiriira geysan doonaan waxaa inoo haray shir aan isugu yeeri doono arrimahaas la xiriira oo ah shirka amniga si hay-adaha amnigu ay iyaguna qayb uga qaataan xal u helidda dhibaatooyinka dhacay laakiin waxaan rabaa shacabka Soomaaliyeed inaan u sheego sida aan mar walba u sheegi jirnay mar walba oo dalkan dhibi ka dhacdo meesha ugu horeysa oo aniga igu soo dhacdo waxay tahay dadka Soomaaliyeed iyagu inay isku tashtaan inay iyagu isku gurmadaan annagu inaan isku tashanno dib walba nagu dhacana annagu aan xallisano waxaan aaminsanahay maadaama aan leenahay guddi ay culimadeennii hormuud ka yihiin in annagu madaxweynaha dowlad goboleedka Hirshabelle Maxamed Cabdi Waare oo ku sugan magaalada Beledweyne ayaa sheegay in dad ka badan 100,000 oo ruux ay ku barakaceen fatahaada ka jirta magaalada Beledweyne kulankan maanta ka furmay madaxtooyada Soomaaliya ayaa waxa uu ku soo beegmaya xilli shir jaraa'id ku qabteen magaalada Muqdisho senatarada ka soo jeeda Hirshabelle ku sheegeen in ay la yaabin yihiin sababta ay dawladdu uga aamusan tahay dhibaatada ka jirta magaalada Beledweyne xildhibaan ka tirsan golaha shacabka federaalka Soomaaliya ayaa ku baaqay in wax loo qabto dadka ka barakacay fatahaada webiga Shabeelle Raxiima Yuusuf Maxamed Rasmi Ruuxi ayaa degmada Walaweyn inooga soo dirtay warkaasi xildhibaan Khaliif Cabdi Cumar oo ka mid ah mudanayaasha golaha shacabka ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya ayaa ku baaqay in si degdeg ah wax loogu qabto dadka uu saameeyay fatahaada webiga Shabeelle waxa uu sheegay xildhibaanka in ay aad ugu xun yihiin waxa ka socdo gobolka Hiiraan iyo Shabeellaha Dhexe isla markaasina ay ahayd in laga sii taxdiro dadka iyo roobabka dusha ka yimid oo diyaar garow aan maaragtay shacbiga aanan u lahayn awoodna u lahayn inaan la wadaago xanuunka dadka bacadka yaalo oo dhulkina banaankiina roob ku garaacayo daadna magaaladii ka kiciyey oo dibadahaas u saaray inaan xanuun la wadaago inaan u sheego waana arrin aad iyo aad maaragtay looga xumaado waa masiibo oo dar Allah maxaa leeyahay xag Ilaahay ka timid annagana maaragtay aan qayb ku leenahay oo aan aqbalaynaa u diyaar garow la'aanta iyo sanad walba ogaashahan ognahay roob hadduu doomo roob xoog leh da'an in Beledweyne laga bixi doono annagoo u diyaar garoobin oo ku metelna shacbigaas siyaasadda hay'adaha caalamiga ah iyo shacbigeena iyo awoodeena iyo dawladeena midna aan ka faa'iideysanin aad baan ugu xumahay waxaan rabaa oo kale inaan maaragtay taageero hadalkii madaxweynaha ka soo yeeray ahaa in baarlamaanka golaha shacabka xildhibaanada matalo Hiiraan iyo Shabeellaha Dhexe iyo dawladda dhexeba iyo in alla intii caawin karto qurba joogta labadaas gobol intaba maaragtay uu u bixiyay abiil uu diray oo ku codsanayo in maaragtay shacbigaas la soo fiiriyo in walba ehelkiisii ugu yaraan marka adeer aad iyo aad aan maaragtay dareemaynaa xildhibaanadii ka soo jeeday Hirshabelle shalayna way kulmeen maanta way kulmeen berrina kulan weyn ayaa la isugu yeeray oo aan uga tashan doono sidii ummadaas arrimaheeda aan maaragtay looga
meel loo saari lahaa ilaahay baa maaragtay xalkeediina aan ka shaqeyno marka runtii xanuunkaas waan dareemayaa iyo reer shabeellada dhexe kaalinteena nin walba awoodiisa dhaqaale iyo awoodiisa siyaasadeed uu isticmaali doonaa ilaahay idinkiisa waxaan rajaynaynaa shirkeennaas shir guul leh oo wax weyn ay ka soo baxaan oo shacbigaas ay ku farxaan waxaasan qabanaynaa ma dhihi karo laakiin waa in gurma degdeg ah aan la gaarno insha allahu maaragtay dowladda dhexe annagoo kaalmaysanayno international community aniga dadka badanaa waxay yidhaahdaan hay-adaha iyo adduunkaana soo kaalmeeyo aniga anoo ka soo jeeda hiiraan markaan waxaan u diray ama aan u qabtay ama gurmad aan u fidiyey ama tegitaan aan tegay adduunyada kale aynan u jeedin oo aniga dadaalkayga inaan isku dayay laakiin meel aan wax gaarsiin waayey ayaa lagu soo gurman karaa international intaba marka annaga teena bal horta aan isku dayno meel tabaran dhigtaan aragno kadib aan ummado kale u qaylin karnaa laakiin hadda waxaa saameyn nagu leh oo howleena rabnaa inaan ka bilowno oo annagana khuseeyo waa nafteena iyo maaragtay dadka ka soo jeeda labadaas gobol oo ganacsiga iyo ku jiro ilaahay wax siiyey iyo dowladda dhexe intaas baynaan iskaalmaysano waayo waxaan anaga noogu muhiimsan rabnaa inaan ka shaqeeyo xildhibaanka ayaa sheegay in kan xildhibaan ahaan ay ka shaqaynayaan sidii loogu gurman lahaa dadkani isla markaasina dadkan go'doon loo badbaadin lahaa dowladda dhexe ayaa ku baaqday in ay kaalin mug leh ka qaadan doonto samata bixinta dadkii saameeyay fatahaada webiga Shabeelle Raxiim Yuusuf Maxamed rasmi ruuxi wararka fiid wanaagsan degmada Walaweyn gobolka Shabeellaha hoose wasiirka amniga gudaha Soomaaliya Abuukar Islow ayaa kormeer ku sameeyay wadooyinka laga soo galo magaalada Muqdisho afakaada Maxamed Axmed ayaa qodobkaasi inoo haya wasiirka wasaaradda amniga ee Soomaaliya Maxamed Abuukar Islow iyo taliyaha ciidanka qalabka sida ayaa xalay kormeer ku maray goobaha control ee laga soo galo magaalada Muqdisho waxayna kulan la yeesheen taliyaasha ku sugnaa xarumahaasi iyo ciidamadooda wasiir Islow oo la hadlay ciidamada ayaa ku amaanay dadaalka ay ugu jiraan sugidda ammaanka waxa uuna ku booriyay inay sii xoojiyaan sugidda ammaanka magaalada Muqdisho kormeerka oo ay qayb ka ahaayeen taliyaasha ciidamada qalabka sida ayaa wasiirka u sheegay inay habeen iyo maalinba diyaar u yihiin in ay sugaan nabadgelyada magaalada iyo in la baaro gaadiidka Muqdisho soo gala saraakiisha ayaa sheegay inay ka hortageen shirqoolo badan oo ay al-shabaab ku soo gali lahaayeen gobolka Banaadir afakaada Maxamed Axmed wararka fiid wanaagsan Nairobi ugu dambeyntiina warbaahinta labada Kuuriya ayaa siyaabo kala duwan uga hadashay shirkii jimcihii ay yeesheen labada Kuuriya Ahmed Yusuf Sheekh Cabdi ayaa qodobkaasi inoo haya wakaaladda wararka ee Kuuriyada Waqooyi ayaa shirkii jimcihii ay la yeesheen koonfurta waxa ay ku tilmaantay inuu ahaa tallaabo wanaagsan oo barwaaqo lagu gaarsiinayo gacanka Kuuriya fariinta rasmiga ah ee dalkaasi ka soo baxday ayaa shirkaasi waxa ay ku tilmaantay inuu ahaa mid taariikhi ah oo uu ammaan ku helayo hogaamiyahooda Kim Jong-un iyo waxa ay ugu yeereen jacaylkiisa uu u qabo dadka iyo sida ay uga go'an tahay ka talinta aayaha dalka si midaasi ka duwan wargeysyada ka soo baxa Kuuriyada Koonfureed ayaa shirkaasi waxa ay u soo dhaweeyeen si uu taxadar ku jiro hase yeeshee waxa ay walaac ka muujiyeen sida waqooyigu uusan u ballan qaadin inuu ka tanaasulayo hubkiisa nukleerka dhanka kale madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa sheegay inuu sii wadi doono cadaadiska uu ku hayo Kuuriyada Waqooyi si uu isugu dayo inuu gacanka Kuuriyada looga ciribtiro hubka nukleerka hadalkiisa ayaa imanaya kadib shirkii guusha ku soo dhamaaday ee dhaxmaray hogaamiyayaasha labada Kuuriya shirkaas oo labada hogaamiye ee waqooyiga iyo koonfurta ay ku sheegeen inay si caadi ah u soo afjari doonaan dagaalka Kuuriyada kadib ku dhawaad 70 sano oo uu halkaasi ka taagnaa dagaal kharaar oo u dhaxeeya labada dal daawadayaal qodobkaasi ayaa ugu dambeeyay wararkeennii fiid wanaagsan intaan warkan kan xigo ku kulmi doono waa dhammaan bahdii qarri joqod oo idin leh sidaasi amaano Allah